xogahayaha eega dhaqaalaha Nuura Faarax George. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. الحمد لله إلهي با محله ما أنت سكان كيناي دمانتين با مدنيال يمروين دمانتين با وين وضع السلام يا مرتي شرفته كسو قيب قشي حفلة ما أنت إسبهاي سيقا إن لنا هاي وين وضع السلام يا سودو هذا. الحمد لله إلهي بان mahadnaqaynaa ina gaarsiiyay maanta guushaas farxadda ah isbahaysiga maanta ay dhaliyeen xildhibaanadeenu iyo gudoomiyaasheena oo ah Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo gudoomiyaheena Faysal Ali Waraawe. waxaan aad iyo aad ugu hambalyeeynaa guushii noo soo hooyatay ay noo soo hooyeen madaxdeenaas aan magacaabay. waxaan halkan uga hambalyeynayaa gudoomiyaha baarlamaanka Cabdi Risaaq Khaliif Axmed oo iyo xildhibaanadii guushay noo soo hooyay iyaguna. waxaan halkan uga hambalyeynayaa maanta waa hambalyo baa la yiri codkana ma badninaye waxaan u hambalyeynayaa xildhibaanadii golaha deegaanka iyo xildhibaanadii golaha baarlamaanka ee sida fiican u guuleystay. halkan waxaan mahadnaq ugu dirayaa madaxweynaheena Muuse Biixi oo guushaas isaguna Somaliland u soo hooyay iyo gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha guurtida Faysal oo isaguna si fiican u hogaaminayay markii ay doorashadu dhacaysay xildhibaanadu. waxaan kaloon aad iyo aad ugu mahadnaqayaa gudoomiyihii muxuu ahaa maxkamadda oo isaguna si fiican oo cadaalad leh u hogaaminayay. anigu waxaan ahaa dadkii live-ka uga daawanayay haddaan Norway deganaa. si fiican oo cadaalad leh ayay u dhacday doorashadii xildhibaanadii kulmiyana sida fiican ay u qaateen markii laga badiyay iyagana waan u hambalyeynayaa. mahadnaq baan u soo jeedinayaa reer Somaliland doorashadii ka dhacday sidii fiicnayd ee cadaaladda lahayd ay u doorteen dadka xildhibaanada fiican ee dhalinyarada ah ee maanta inoo soo baxday. aad iyo aad baan ugu farxay waanan u hambalyeynayaa sida cadaaladda leh iyo deganaanshaha lahayd ay u doorteen xildhibaanada. anigu waxaan ka baryayaa xildhibaanadaasi inay noqdaan kuwii maanta Somaliland nabadda u soo hoyn lahaa, cadaaladana u soo hoyn lahaa, xaqna ku hagi lahaa ummadda Somaliland. ummadda Somaliland waxaan leeyahay xildhibaanadaas maanta idiin soo baxay waa xildhibaano fiican, waa qaar dhalinyaro ah, waa qaar kan doonaynay oo Ilaahay ka baqaya inta badan. intaas cadaaladda ay ku socdaan waa inaad ugu hambalyeysaan, waa inaad ka joojisaan Facebookan waxaan aad u marinaysaan, waa inaad ka joojisaan rabshada idinku haysaan Facebooka. waayo dadka kale agteena hana wayna arkayaan. marka waxaan ka baryaa ummadda Somaliland inay joojiyaan waxyaabahan ay sameynayaan ay ka sameynayaan Facebooka ay wadankeena dhibaatada u keenaysa. madaxweynaheena Muuse Biixina waxaan leeyahay marka Facebooka wax lagu soo qoro ha maqlin madaxweyne ila madaxweynaha iyagii baa tahay, qiimaad noo leedahay, ixtiraam baad nagu leedahay. maaha waxa Facebooka lagu soo qoro inaad maqashid oo dadkii jeelka u xaabtid. imika laba qof baa Facebooka lagu soo qoran arkay, labadii qof baa madaxweyne waxaad u qaaday inaad xidhid. waa sheekhi Maxamed Ismaaciil, sheekh Maxamed Ismaaciil waa inankii coldoon. hadduu la yiri wadankeenu waa dimuqraadi oo dimuqraadi baynu ku noolnahay, maaha in dadka jeelka loo jiido,
hadday hadlaan marka maanta madaxweynahan anigu arrintayda ku socotaa waxa weeye jeelkan dadka loo xaabinayo adiga wejigaaga la isticmaalay wax kale lama isticmaalin mudane madaxweyne Muuse Biixi waxaan ka codsanayaa inaad inaga daysid waxyaabahaas la sameynayo ee dadka kula shaqeynaya ay sameynayaan ee dadka xidhayaan intay maanta wax yar Facebook lagu soo qodo beritoona aan maqlayno waa la xidhay ama jariidad lagu soo qoro imika Facebook wuxuu noqday wax xun oo dadka waxun ka fidinaya ma aha mudane madaxweyne inaad maqashid intaasina madaxweyne ay ku socotaa rooday walaalo waan yara dhameynaya maanta dhiigaygaas iska ka yara kacsan wuxuu ku kacsan yahay wadankayga waxa ka socda waayo way dhibaysaa aad baana ii dhibaysaa hal laga daayo dadka wadanka xumeynaya ee jariidaha ku soo qoraya ee Facebook ku soo qoraya hanaga daayaan waxay wadankayaga naga xumeynayaan mudane madaxweyne haddana waan ku celinayaa waan guula hadlayaa because waxa weeye wixii wadanka iyo wejigaaga xumeynaya ka ilaali wadanka qiimo nagu leeyahay laa ilaaha illa allah muxammadur rasuulullah wa calankayaga ku yaala aad buu qiimo nagu leeyahay dad baa u soo dhintay dad baa u soo halgamay marka salaam qaaliyana madaxweynaha gawan soo diraya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh idinkuna waa mahadsan